waxaa degmada deegaanka Tukaraq meel u dhow lagu afduubtay dad wadadaas marayay dadkaasoo siideyntoodii iyo hawshoodiiba aan kula kulanay dhibaatooyin aad u fara badan nafahayaguna halis u galeen sagaalkii habeenimo loo soo sheegay in dad la afduubtay anigii odayaal kale 10 habeenimo la saacad ka baxnay meeshii loogu sheegay nimanka waxaan gaarnay 1 habeenimo 1 ilaa 3 waan baan ku jirnay marxabadna lagu rido ilaahay markii dambe waan ugu soo guuleeyay ninkiina la saacad baan u keenay arintiina waan dujinay arinkii arin la mid ah ayaa xalay soo cusboonaatay oo meel degmada Carooley u dhow waxa lagu afduubtay 2 nin labadaas nin oo iyaguna culays ka sii badan aan kula kulanay waxa soo hawla iyo waxa soo culaysa waxay u dhacayaan ma aha dad burcada dadka waxa sameeynaya iyo dad jiriyo meel ku jira waa dad ka gadoosan oo ka cadhaysan xadiga afayeenka dhibaatadan aanu maanta kala kulanay soo deynta dadkaas xalay la afduubtay naftayada iyo nafo kale waqiiqeer bay ku galeen xalay markii nimanka la afduubtay saaka baan waan ka galnay annaga iyo odayaal kale waan ku baxnay meeshay dadku joogeen ilaahay waa nagu soo guuleeyay markii aan nimankii sii daynay oo ay magaaladii Carooley ka sii socdaan ba qolo kale oo meel kale ku jirtay iyaguna nimankii heleen dib bay u ka haysteen odayaashii ciidan kala ku baxay nimankii waa laga daba tagay israasaasayn iyo dagaal meeshii ka dhacay kadib nimankii yaahayadana waa nagu soo guuleeyay nimankii waa la soo kaxeeyay meesha khasaara ka dhacay mid hanti iyo mid nafeedba ilaahay dad cid kuma dhiman laakiin si dhaawac waa jira qof ku dhaawacmay hanti ku burburtay oo kale waa jirtaa waxa aanu ka dignay markii hore ilaa imka aanu ka dignayna waa dhibaatooyinka soo noqonaya waxa maanta dhacay waa wixii ugu fududaa ilaahay ma naf meesha ku gooyin toodii baysan dadkaasi noqon waxaanu ku baaqaynaa ninka halka ku xidhan in xoriyadiisa dib loogu soo celiyo deegaanka iyo dadka deegaamadaas ku nool ma aha dad colaad sokeeyo xamili karaya ma aha dad colaad qaadi karaya waxaanu intaas oo dhan u maraynaa dadkaas si nabadgelyo ugu wada noolaadaan waxaanu dadka u sideynayna oo dadkaas si xorriyad dadka shacabka ay isku gudbaya in xorriyad isku dhaafdhaafaan hore odayaal waa ugu digeen caawa waxaan halkan soo fariistay waa in wixii la bunbuuninayay iyo wixii dad baa la haystaa la lahaa aanan hadda aysan jirin cid la haystaa nimankii maanta la kaxaystay ee la qafaashay xorriyadoodii waa loo soo celiyay waxaan ku wareejinay taliska ciidanka iyaga la wareegay halkaas ay joogaan caawo aroortii hadii alla ka dhigo baan rajeynaynaa inay ka ambabaxaan annaga oo nagala wareegay waxaan ku digaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba in deegaanka iyo dadka lagu kala abuuro colaado sokeeyeen in waxaan dadka iyo deegaanka hore u aqoon maanta la keeno deegaanku markiisi hore baa buu la jectiyay colaad iyo abaaro iyo dhaqaale xumo maanta hadii mid cusub la keeno wax suurtoobaysa maaha waxaan xukuumadda ugu baaqaynaa inay afayeenka xorriyadiisa u soo celiyaan dadku waa hadlaan wax waa la dhaliili karaya dadka hadaan la dhaliilin miyaa loo heesiyaa miyaa la amaanaya dadku wax waa dhaliili karayaan wixii lagu dhaliilaya ma khalad ahaato ama sax ahaato ma ahayn in hawsha inta halka la gaarsiiyo